Xuurida amaba quurida oo afka qalaad lagu dhaho snoring waa cod xabeeban oo uu qofku yeesho xilliga uu hurdayo kadib marka qaybta sare ee hawo-mareenku noqoto mid ciriiri ah, hawaduna aanay si quman u mari karin. Taa oo abuuraysa codka xuurida. Qof kasta ugu yaraan mar waa uu xuuriyaa, balse dadka qaar ayaa qaba xuuri muddo dheer haysay oo cid kasta ay ku dhibsato. Xuurida waxa ay noqon kartaa calaamad tilmaamaysa xaalad caafimaad darri. Xuuridu waxaa lala xiriirin karaa xaalado caafimaad darri oo ay ugu weyn tahay obstructive sleep apnea amaba OSA xaalad loo yaqaano, balse macnaheedu maahan in qof kasta oo xuuriyahay uu qabo jiradan. Haddiise xuurida ay la socdaan calaamadahan hoos ku qoran, waxaa lagama maarmaan ah in aad booqato dhakhtarka si loo sameeyo baaritaanno lagu xaqiijinayo xaaladaada caafimaad. Waxa ugu horreeya neefta oo kugu dhegta xilliga hurdada, hurdo saa'id ah xilliga maalintii ah, iyo mahsanaan amaba diiradda oo qofka ku adkaata. Waxa kaleeto oo qofku uu isku arki karaa madax xanuun xilliga subaxa ah, cunaha oo xanuuna marka uu soo tooso, daal uu qofku dareemo marka uu hurdada ka soo kaco, iyo sixasho xilliga habeenkii ah. Cadaadiska dhiigga oo kor u kaca iyo xabadka oo qofka xanuuna xilliga habeenkii. Waxa loo yaqaano obstructive sleep apnea amaba OSA waxaa lagu gartaa xuuro dhawaqeedu dheer yahay oo ay xigto waqti yar oo aamusnaan ah, waana marka ay neeftu xirmayso amaba qofka ay neefta ka joogsanayso. Neef-qabatinkaasi qofka ku dhegaya amaba ku imaanayana waxay keeni kartaa in aad hurdada ka soo boodo. Oo dadka cudurkaani qaba waxaa lagu yaqaanaa in ay xuuro dheer yeeshaan waqti yar kadibna neefta ku dhegto oo ay hurdada ka soo boodaan ama soo fariistaan. Dadka cudurkaani qaba waxa ay la kulmaan neef-qabatin xilliga ay hurdayaan ugu yaraan 5 jeer saacad kasta. Sababaha keena xuurida waa ay badan yihiin, waxaase ugu muhiimsan hab dhismeedka afka oo dadka qaba cudurkan sleep apnea-da amaba obstructive sleep apnea-da waxa ay leeyihiin dhismeedka afkooda amaba mouth anatomy-gooda oo wax ka qaldan. Sidoo kaleeto allergies-ka amaba Soomaalidu waxay u taqaanaa allergiga ayaa waxa uu qayb ka qaadan karaa in cudurkan yimaado, oo allergiga waxa uu keenayaa in caburnaan ay timaado, habdhiska neef-mareenka ay yaraadaan dhumucdooda. Sidoo kaleeto waxaa ka mid ah cayilka, oo buurnidu waxa ay keentaa inay culays saarto habdhiska neef-mareenka. Sidoo kale ilmaha yaryar ee qaba dalqada dheer amaba ay ku yaalaan quumanka amaba dadka sanka ku leh nabarka amaba hilibka yar, waxa ay dhammaan ku keeni kartaa in ay neefta maritaankeeda ku adkaado, yeeshaana quuri. Haddii qofka uu calaamadahan isku arko, waxyaalaha oo ay tahay in uu sameeyo ama lagula talinayo waxaa ka mid ah in cayilka uu dhimo, in xilliga uu seexanayo uusan qaadan cunto culus amaba heavy meal, iyo in uu marka uu seexanayo uu u seexdo dhanka midig, maadaama marka uu qofku u seexdo dhabar uu culays saarayo habdhiskiisa neef-mareenka. Haddii intaasi aysan qofka waxba ka bedelin xaaladiisa, waa inuu booqdaa dhakhtar si uu u helo la talin iyo daryeel caafimaad.